ama ifafaalaha colaadda ka socota ay tahay mid ayaan darro ah marka hore waxaan baaq nabadeed u soo jeedinayaa dadka deegaanka degan in wax walba wada hadal lagu dhameeyo in aan dagaal xal ahayn in aan xabado xal ahayn in laga digtoonaado wixii burburkii Soomaaliya ku dhacay in laga digtoonaado horta baaqaas marka hore waan dirayaa waxaan rajeeyay arrintaas si degdeg in loo joojiyo midda labaad maxaa kalifay waqtigan xaadirka ah dhowr iyo 20 sano kadib in dagaal la abaabulo maxaa kalifay maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah aanu oran karaa rabaa inaan maanta iftiimiyo Puntland iyo Galmudug in badan bay waxay ahaayeen nabad ku noolaayeen gobolka ku noolaayeen runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynayaashii soo maray sida caalim madaxweyne Cabdi Qaydiid oo runtii kaalin weyn ka qaatay inaan gobolka dhibaato ka dhicin sida aad la socotaan 93 labadii marxuum dhibatay Qaydiid iyo Cabdullaahi Yuusuf heshiis dhaxal galahay 93 halka dadka dhex dhigeen kiiba lagu joogay waxaan moodaa dad maalmahan dhiig ooman oo aad moodid in muxuu ahaa dilka Soomaaliya ku cusub yahay inay abaabul siyaasadeed wadaan arrintaas gobolka ka socota bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ku hadlayo magaca guddiga xaqiiqo raadinta hanti isku celinta iyo dib-u-heshiisiinta baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaan rabaa inaan halkan baaq uga soo jeediyo walaalaha ku dagaalamayo gobolka Mudug ee ka kala tirsan labadiisa dhinac waxaan rabnaa inaan iraahno walaalayaalow nabad dagaal wiil baa ku dhasho ee wiil kuma muxuu ahaa dhasho colaad joojiye